kalfadhigan saddexaad kulankiisa labaad ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha aqalka sare wuxuu maanta ka qabsoomay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho. ajandayaasha ugu waaweyn oo ay maanta xubnahan isugu yimaadeen waxay kala ahaayeen ka doodista xeerka dhowridda gobonimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed iyo arrimaha amniga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. fadhigan ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 41 xubnood oo golaha ka mid ah waxaana shir gudoominayay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo labadiisa ku xigeen ay dhinac fadhiyeen. xildhibaanada ayaa marka hore bilaabay dood dheer oo muddo qaadatay taasi oo ahayd ka doodista xeerka dhowridda gobonimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed oo ka soo gudubtay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed kadib heshiiskii shirkadda DP World Ethiopia iyo Somaliland oo ku saabsanaa dekedda magaalada Berbera. badi xildhibaanada golaha aqalka sare ee ka qaybgalaya fadhigan ayaa aad u taageeray go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka ka qaateen shirkadda DP World. ha yeeshee xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyey aragti ku saabsan in loo yeero wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre si wax looga weydiiyo xog ogaalnimadooda ku saabsan heshiiskaasi. horta mar walba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan qarannimada Soomaaliyeed wax ku iibsanayn inaanan waddan Soomaaliya leedahayna halkaa ku hadnoqday dawladda kale ku sii boodgaraynayn laakiin waxaan rabnaa inaan si degan uga fiirsano go'aanada aan gaarayno ee soo saarayno. waxaa la yaab noqotay oo hadda qodobada ku jira meesha siduu sheegay walaalkay senator mashruuc dawladda Ethiopia oo 19 ku leh ilaa hadda cid ka hadashay ma leh. dawladda kama hadlin golaheena shacabkana kama soo hadlin. way dawladda Ethiopia loo diiday xaaladuna waxa weeyaan aabo ka yariga qabo ka weyn ugu soo daa. dawladda Ethiopia lama sheegi karo inay waddankeena ku xadgudubtay. waxay leedahay dawladda Ethiopia waxay samaysatay maanta wasiirka dekedaha Ethiopia dawladda sir dekedood ma ilahan jirin waxa loo samaystay waa dekedaheena way loo qarinayaa in Ethiopia waddankeena faragelin ku hayso. mudane gudoomiye waxaan ku soo koobayaa dib haddaan u noqdo kadib markaan akhriyoon arkay runtii qaabkay u mareen iyo qodobada ay soo qaateen iyo sida hufnaanta leh ee waliba u kala dhigeen aqalka golaha shacabka waxaan qabaa runtii inuu yahay go'aanka ay gaareen go'aan aad iyo aad muhiim ugu ah maanta waddanka Soomaaliya badbaadintiisa. si aanu u qaadano go'aanadaas oo saxa oo damiirka iyaguna hogaaminayo ilaahay hortiisna aanu ku fulinayno arrimaha inaan xog helo baan u baahan. waxaan u baahannahay in wasiirka arrimaha dibadda loo yeero halkaan yimaado. waxaan u baahannahay ra'iisul wasaaruhu inuu yimaado maadaama uu goobjoog ka ahaa maadaama uu joogay Abu Dhabi maalintii lagu saxiixayay arrintaas inaan ogaano. waxaan u baahannahay inaanu kala tashano taladooda laftooda aanu tixgelino markaanu go'aan ka qaadanayno. maalmaha soo socda ayaa mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay sidan oo kale ay uga doodi doonaan go'aanka dhabta ah oo ay ka qaadan doonaan arrinta xilligan taagan ee heshiiska dekedda Berbera oo dhexmaray Ethiopia, Somaliland iyo shirkadda DP World. Umar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.